السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد وان السلام مeel kastoo aad joogtaan. waxaan idin leeyahay walaalahay meel kastoo aad joogtaan dibadda iyo gudaha dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba meel kastoo aad joogtaan waqti kastoo idiin tahay waa walaashiin nasteexa samafale oo idin dhahaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka bacdi waxaan rabaa maantay inaan ka hadlo arrimo aan isleeyahay waa muhiim aniga ahaantayda nasteexa ahaantayda muhiim bay ii tahay. I hope idinkana inay muhiim idiin tahay. wuxuu ku saabsan yahay dalkayagii iyo dadkayagii. waxa weeyaan waxyaabo aniga qisooyin igu soo dhacay oo dalkii iga soo dhacay. dadkayagii sida uu yahay oo isku bahdilahayo oo isku hadlaynaayo oo isku baabi'inaayo laaluushka ka jira waddankayagii iyo dhibaatada dadku is dhibaataynaayo ayaan aad iyo aad uga soo xumaaday. waxaa jirta waxyaabo aan ka baranay waddankan hadda anagu aan joogno. dadkiisu aad buu isku jecel yahay, dalkoodana aad bay u jecel yihiin. iska dhaaf dadkoodee dadkayaga annaga aan ku diin ahayn oo ku diir ahayn oo waxba u ahayn ayay soo dhaweynayaan, ayay maaragtay guryo siinayaan, ayay lacag siinayaan, ayay caafimaad siinayaan. marka waxaan la yaabay oo aad iyo aad aan ula fajacay war ummado annaga aanna shaqo ku lahayn ayaa sidaa wax u soo dhaweynaya. dadkayagiina saa arka isku dhibaataynaya. laba maado ayaa aniga uurkutaal igu noqoto oo waddankay ka jirta. waa mide waa qashinka waddooyinka yaalla oo lagu shubaayo, waddooyinka la gooynaayo, dhagaxda guryaha dariiqyada la dhigaayo, jidadka la isku ciriinaayo, wasaqda bannaanka lagu daadinaayo, qashinka waddankayagii nacam dhibaateeyey. dhowr jeerna waa ka hadla arrintaas. midda labaad waxay tahay ummaddii Soomaaliyeed oo isdhibaataynaysa, oo isbaabi'inaysa, oo isxastaysa. I think waxaan isleeyahay gaaja u geynaysa. laakiin waxaan isleeyahay xataa haddii dadka laaluush laga qaadayo waxaa fiican dadka in si wanaagsan loola dhaqmo. qisooyinkii soo mara waxay ahayd 2 qiso, 3 qisaba ka dhig. mid qashinka xaggiisa iga soo martay iyo 2 iga soo martay xagga maaragtay dadka maxay ahayd askaraha, badanaaba askaraha. dabcan askara fiicana way jiraan, dad fiicana way jiraan, laakiin dad anigu aan soo arkay waxa weeye wax la yaabay weeyaan. midii noogu darnayd waxay ahayd annagoo jidka marayna ayaan waxaan aragnay askar dadkii ulaynaysa, dadka maxay baabuurta wato bajaajleyda ulaynaysa, qorigii ula soo baxaysa qalqalka ka gelinaysa, hooyooyinkii ul iyo ciyaalkii bayda kaga saaraya. waxaa jirtay nin ciidan ah oo aan bartay ayaa waxaan ku dhawanayo baasaboor baan u baahanahay. I hope inuu meeshan iga maqlaayo. haddii aadan alaabtayda igu soo raadin, lacagtayda igu soo raadinna magacaaga iyo musawirkaaga waa soo saaraya. ninkaas wuxuu yiri baasaboor baan kuu samaynayaa. waa israacnay meesha nabad sugidaan tagnay. nin baa lacag iga qaatay, waraaq dhalashay waxbaa la iisan sameeyey. waa baxay meel baan tagnay, haddana lacag baan soo bixinay. waraaqdii dhalashada ayaan soo samaystay. migrationka ayuu wuxuu yiri lacag ah $108 ayaa lagu samaynayaa. waxaan ku yiri okay, waa u dhiibay. qof aan aqaan oo aan qabiilkiisa aqaan oo aan magaciisa aqaan oo dadkiisa aqaan waayo. 108 lacagtaada wuu iga qaatay. ilaa iyo hadda adigu ma qabtaa ninkii? telefoonna waa iga qaban waayey. xataa meelo aan ku bartay oo ugu tegay markii aan alaabta u dhiibanayay waa ka waayey. laakiin waxa waaye
haddii ay noqoto nin mas-uulaha tahay nin ay dhonow xidiga iyo wuxuu lahaa ma aqaan waxa waaye alaabtayda iyo baasaboorkayga waraaqahaygii masawiradaydii iyo baasaboorkaygii waad ii soo saaraysaa waana igu soo raadinaysaa haddaadan sidaas samayn waxa waaye is up to you taas waa mid labaada waxaa jirtay gabar ayaa baasaboor ka dhumay baasaboorkii markuu ka dhumay waxaan aadnay meel la yidhaahdo waa meesha nabad sugidda magaceeda ma sheegaayo laakiin taas waan ka yara gaabsanay magaceedii meesha ku taallo qofka laftigiisa askariga beenta waan ka gaabsaday laakiin waxaan idin sheegayaa dadka wixiisa inayna iskaga qaadan oo iskaga tikri falan dadku dad nool waaye waxoodana si reebaan bay ku raadsan karaan waa raadsan karaan qof magaciisa saddexa aad taqaano oo aad muuqaalkiisa taqaano oo meeshu ka shaqeeya aad taqaano hadduu waxaaga qaato waa in la sheego waayo soomaalina isqarisa maaha isqariska iyo laaluushka iyo balaayada waxaa soomaalida baabi'inaya waxaa jirtay marka meel baan tagnay nabad sugida waxaan ugu yidhaahdeen gabadha baasboor baan ka dhumay meel dadku fayl ugu jiray ahayd dadka ciriiri bay ka mudanayeen dhibaatay ka mudanayeen fayl baa loogu jiray meesha markaa nimid waxaan ku war meeshaan nin baa marka qori la hortaagan dadka oo dadka qaarna aqoon malaha kusii daynaya I don't know warhee dhammaana sii daysid markaasuu yidhi okay si wuxuu igu sii daayay war maamooy hooyooyin qorax taagan baana sii daayay wiilku waabana reexsu waan sii daayay markii aan galnay meeshii oo aan saas qol yaro wuxuu horta ninkuna hortaagan meeshii galnay ayaa nin malaka mawd u eg oo madax u duuban yahay oo lugla oo qori sita ayaa ilaahay nagu soo salladay ninka afkiisa waxa ka deganaya cay qoriga inuu nagu dhifto annagana na dilo wax nacam hasinka ahay kii anoo ka yaaban oo dhahay bismillaahi raxmaani raxiim war hana caayin anigoo dhahaya oo haddee kumana sii dhiiran karay siira dad bay raba inaan ka soo baxo ayaa nin calool weyne la yidhaha dhar cad ah halkaasoo kale ka qayliyey markaasuu maxay ahaydeen waxaana maxay ahayd cay iyo waxa afkiisa ninka ka degahaya kii na soo daayin wuxuu waaba ku xirahayaaba war annaga hana caayin oo hana caayinina meeshaan waraaq yar baan ka rabnaa gabadhaan baasaboor ka dhumay ma waxaan ka rabnaa inaan waraaq u samayno war allihiin alla maya markii dambe aqoon ma tahay wiil askariyo meel jooga waxaan ku war dhibaataaba meeshaan naga maxaan ka raacay maxay hayuu yiri hadda wuxuu dadku isla mid maaha rag isla mid maaha waa ragga aan iri ilaahow yaa dadkan inta maaragtay dadkan waxaan ninba hooyaa dhashay labadaas qof ninba hooyaa dhashay wallaahi nin askariyo ah meel iska taagan oo inuu waardiye aan u malaynayno wuuna soo kaxeeya wuxuu yiri dhagaysta qolun noo keenay wuxuu yiri gabadhan baasaboor baa ka dhumay waa in loo sameeyaa islaam kuwa meel fadhiyo oo teeb garaac ahay markaasay nagu yidhaha okay $10 baa loo baahay $10 soo sarrifo soo qaada gabadha waxa weye masawir baa laga qaadahaya farana waa laga qaadahaya okay $10 soo sarrifnay meeshaan keennay meesha markaan keennay ayay yidhaahdeen idinku iska baxa kii malagaa meesha ba taagan yahay meesha ma aadi karno meelaha ma fariisan karna meel luuqa intaan galno oo geedashadooda aan iska galna gabadhii meesha ku jirta gabadhii 3 qof baa meesha fadhida qof teeb garaacaya oo maxay ahayd teeb garaacay markii gabadha faraha laga qaado oo la masawiro oo teebka la garaaco oo masawirkeeda lagu dhajiyo ayaa mid kale loo sii geynaya kaas kala soo saxiixaya oo asna lacag qaadanaya gabadhii markaan ka soo dhaqaaqnay 3 qof baa meesha fadhiday waxaa la yiri lacag 10 ku tuur telefoonkan way tuurtay telefoonkan kana 10 ku tuur baalay way tuurtay telefoonkan kana waxa isleeyahay waa 3 qof meesha fadhida min $10 baa laga tuuranaya gabadha $20 bay haysataba way soo baxday waxay tiri war lacag baa layga rabaa 20 jaa waa layga tuurtay 10 kalena waa layga rabaa oo yaa ka raba dadka meesha fadhiya iga raba meesha ma soo galnay war lacagta qaadanaysa maxaa ku qaadateen afkana markay ka soo baxday waraaqidii gabadha loo sameeyay gacanta lagu hayay gabadha way u jeeday laakiin anagu maana jeedin luuq baa dalaq lagu siiyay meesha hoos baa la geliyay waraaqahan waxa la rabaa inta la gargaraaco la isku duwo in ninkii kale soo saxiixayo lacagta qaadanay loo geeyo markaasay yiraahdeen maxaa sheegaysaan lacagta gabadhan aad ka qaatan maxaa uga qaadateen soo celiya lacagta anagoo u jeednaa 12 la soo tuuray bash la soo siiyey markaasay waraaqdeed meel bay geliyey berri soo noqday berri soo noqon mayna waraaqdana siiya gabadha waxay tiri waraaqdeed hadda waa halkaas lagu tuuray tiri waraaqdeed waraaqaha laguma darin halkaas lagu tuuray war waraaqdana siiya naga bax arbush iyo shoobar ma baahnay bax askar ma hadii kale ku dalbanayna banaankan la soo dhigay ninka askariga ahaa markii hore aan u tagnay oo wiilkii fiicnaa
ayaa waxaan idhi war askari war saasa walaalow nagu dhacday oo soo orday intuu yimid buu yidhi gabadha waraaqdeeda aaw ها أنا قريبيشن مالكو سمين هيا أنا قاب عسكرنا لو سوادنا هيا ميا ناقي هي نمك ولا سحناتشي محان قريبيشن وانكم ماشي وسكتنا نمساكين إسلام هو آي أو كإسلام سلوك في عناية بس وحايري لبضات نمبا ضد كاسبة هبر بعد الشيء وقف بعد الشيء ولا أمد إلى هيا ويا أمد ضدك حنك قبض ضدك في عن وحو قدره ninka askariga ahaa markii uu yiri kana waraaqdi baa la yiri oo maxaa lagu yiraahdaa ma heblaaya hebel baa lagu yiri waa kibir waraaqdi halka wataa geliseen bay tirka wadha halka wataa waraaqdi geliseen iga soo saar markii dambe waa la yar cabsada waraaqdi baa la soo saaray waraaqdi baa lagu soo daray waxay waan loo soo dhameeyay mar dambe taan waxaan ku nir kuwa madaxo meel marmarayay oo kaalaya nima saraakiil oo sharaf lahaabo ogtiine dadka meesha maxaa ugu caayaysan oo loo caayaya oh sorry waan maqalna maanta in ninkaas jirano meesha fadhiya waa kii madaxa dubnaa qoriga sito meesha la fariisaya ninkaas jirano meesha fadhiya inuu ina caayo waa maqalna oo waxaan walaalayaal qof jiran maxaad u fariisinaysaan meesha maxaad sadadka waxaan ku tabcan waxaan ku iri dawladda xafiisadeeda lacag baa looga baahan yahay qalinkii waa lacag waraaqdii waa lacag wax walba waa lacag waan la soconaa laakiin dadka si sharaf leh intaad u kala fariisisaan oo u habaysaan oo kuraas u dhigtaan ما dadka lacagta si fiican uga qaadaan haday canshuur tahay haday teeb garaac tahay haday maxay tahay waraaq saxiix tahay okay dadku lacag way soo qaadanayaan laakiin si wanaagsan dadka in loola macaamilo oo bulshada iyo shacabka si fiican loo fariisiyo oo lambar xataa loo sameeyo dadkan hadda meelaha anagu aan joogno waxaan ka baranay waxa way meel baa tagaysa lambar baa goosanaysa qof walba lambarkiisa loogu yeerayaa day lambarkaagu markuu yimaado meesha imaanaysa ilaa lagu dhameeyo ummadda kale safkii bay sugaysaa war maxaa kala dambeynta idin diiday Soomaali Maxamedey maxyar oo iisiya maxaa idin diiday inaa wadankiina ku soo noolaysataan oo dadkiina iyo dalkiina uga naxdaan taas horta waa taas oo waxaan u baaqahayaa ummadda dalkan iyo dadkan hoggaanka ka ah waa in lagu sameeyaa maxay ahaaytay kormeer lagu sameeyaa waxa xafiisyada dawladda iyo meelaha dadka masaakiinta ay dhooban waxa lagu sameeynayo waa inaa kormeer ku sameysaan waa inaa ka warqabtaan waa inaa security u dirtaan security sii waardiyo la xisaabtan way loo diraa gabdhihii baa jidadka ku dhalahayo isbitaalada laga soo saaraya gabar masaakiin oo isbitaal laga soo saaray banaanka ku dhashay dariiq ayaan u arkay maalin dadka dad dabagala oo fiiriya oo control in loo sameeyaa dal aan dad lahayn madax ma yeelanayo madax shacabkoodii la cunayo sidii dugaagii loo cunayo loo googoosano afar balaayo kala cunayso dawlad uma noqonaysaan dawlad waxaa noqonaysaa marka dalkiina iyo dadkiina u naxdaan dadkiina markuu maqsuud yahay oo habi yahay ayaa dawlad noqonaysaan dadkiina oo la cunayo iyo dalkiina oo wasaqa oo dheertiya walaalayaal ilaahay ha laga baqo waxaa jirta magaalada xamar waxaa qiso kaleeto waddo waxaan arkay qashin badan yaalo markaasaan waxaan ku iri qashinkaas inaan lacag ku bixiyaan rabo xaaqo markaasaa leys ilaali waa lagu dilayaa haye waxa loo naagta mashruuc bay soo qaadatay mashruuc bay sidataa waxaa lagu diidaya oo haddii qashinka aan ka qaado حتى مشروع سوق هذا هذا مشروع مش تقدر إلهي وأنا حاقة ياي حتى مشروع هذا أنت سوق أن قشن كاتك كهر حاقة محل بوجه وحاب دبي سبدتك إلهي أمركيس إسلامتي هذا ناولا لي قشن كان ما تسكوري تشيد ما سجد كان دقيس كقادد إلا آخره وحليس سؤال ياي وحكي هذا باور باقول إيه قاعد داس وأنا دقح تشيدك ودقايا مثل دقح يسوي دقيس باور تشيدك ما مركرة biyihii iyo wasaqdii iyo baastadii iyo bariiskii iyo digsidii ay ku xoqeen intay guriga hor jeexaan bay ugu daadinayaan bacihii bay ku daadinayaan lafihii bay dhigahayaan waaryaarahe sidee baad marka u rabtaan fiiri markaad dalkiisni wasaqaysaan oo dadkiinni cunteen baa waxa rabtaan inaad soo qaxdaan oo soo tarhiibtaan oo Mareykanka iyo Canada iyo Sweden iyo Europe iyo UK usoo kala qaxdaan meelihii haddaan u soo qaxnay laftigeedii baa laysku haystaa oo birta qacde maanta waxaa maqlayay ilmo cunug baa wiil baa dabaq iska soo tuuray
daraad mid baa meel shuqa laga soo mid kala xabad ku dhiftay meelihi kala xataa haddaan nimaadno kabtay maaragtay habartay maaragtaa naga raacday horta dad waxaan nahay fiican oo diintooda ku dhaganoo dharkooda ku dhaganoo haddii qofku xataa uu jin yahay oo hoos wuxuu ku leeyahay laa ilaaha illa allah muxammad rasuulullah taas waa horta waa waxdan oo diinteena horta waan ku dhagannahay oo annagu haddaba waa 30 sano dibadaha joognay ma saas u qamaarannahay laakiin waxaan uga baaqayaa bulshada Soomaaliyeed please dadkiina u naxa kaba qaata lacagta yaa kaba qaata lacagta laaluushkan ummadda aad la hortaagan tihiin ummadda ka hor wareega dhalinyaradii waa aqoon yahano hal midoo waxa jirtaan aad ugu soo bogay horta balwadii iyo jaadkii iyo wax jidadka ay ku cuni jireen way yaraatay dhalinyaradii waxay noqdeen mutacalimiin iskoolada la aadaa waa yara dhaqan yihiin laakiin markii ay wax soo bartaan shaqo ma helayaan yaa hor fadhiya laaluush hor fadhiya wasiirkaaga keen haddaa shaqo rabto xildhibaankaaga keen haddaa shaqo rabto xildhibaanka kale hal raadso wasiir kale hal raadso war yaa ilaahay yaqaana war xagee lagu arkay wasiir iyo xildhibaan shaqo bixinaya oo shaqo bixinaya wakaaladuhum way salahayn madax lahayn waay ilaahay ka baqa dalkiina iyo dadkiina iyo dhalinyaradiina u naxa wasaqda mideeda taala wax yar baa ku badbaadin kartaan idinkoo yiraahda islaantii gurigeeda xaaqan weyda waa ganax ama waa xiraynaa idinkoo yiraahda islaan walba idinkoo yiraahdo intaasoo mitir isku wareega gurigaaga xaaqo haddii xaaqi weydana aad tirahdaan haye ganax baa tahay yaa baabuurtan qoorta isku gashay oo bajaajtii iyo baabuurtii kala socon waayeen dee ha loo kala sameeyo jidka ha loo kala sameeyo maxay ahayd lambar ha loo kala sameeyo ha la yiraahdo baabuurta ninkii degan huruwaha ka shaqaysto ninkii xamarweyne degan xamarweynaha ka shaqaysto ninkii banaadir degan banaadir ha ka shaqaysto lambar u kala sameeyo nidaam u kala sameeyo dalka idinkaa leh dalkana idinkaas kale dadkana idinkaas kale qof walba dadkaaga xil baa duudka qof walba dadkeena xil baa duudka ku suran waa deynku waajib daafaca dalkaaga iyo dadka aad ka tahay ximin biliis shacabkeena daaliya naga daayay khilaafka naga daayay qabiilka naga joojiya وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.